cashirkeena qaybtii saddexaad aan bilaabana insha Allah. Hore waxa ugu soo hadalnay cadceedda iyo meerayaasha ku wareegsan cadceedda ama baha cadceedka. Hore waxa ugu soo hadalnay cadceedda iyo afarta meere ee ugu dhow oo kala ah Mercury, Venus, dhulka iyo Mars. Hadda marka waxaan ka hadlaynaa meerayaasha kale. Meere maxaa lagu bixiyay? Sababta meere loogu bixiyo maxaa waaye waxay ku wareegsadaan qoraxda hareeraheeda. Haddii aan shidno ama wareegooda aan fiirino sidaan oo kale u wareegsadaan. Mars waa kay, dhulka waa kan, Venus kulligood meerayaasha oo dhan intay ku wareegsanayaan hareeraha cadceedda. Soo ma jeed? Waayahay afarta meere ee qoraxda u dhow ayaan soo baranay. Hadda waxaan baraynaa afarta meere ee kale. Intaanan gelin afarta meere ee kale saa u wada jeedaan meerahan Mars iyo Jupiter. Mars iyo Jupiter waxa u dhexeeyo koox ama meel u maleysid inay yihiin xidigo camal ama walax firdhisan oo sida dhagxaan ah. Waxyaabahan u dhexeeya Mars iyo Jupiter waxaa loo yaqaanaa meerayaal. Maxaa la dhahaa? Meerayaal la dhahaa. Meerayaashu waa waxyaabo adka ah oo u dhexeeya waxay u dhexeeyaan Jupiter iyo Mars. Haddii aad fiirisid waa kana Jupiter. Waxay u dhexeeyaan Jupiter iyo Mars ay u dhexeeyaan. Waxaa la aaminsan yahay in meerayaruhu u dhexeeya Mars iyo Jupiter. Waxaa jira boqolaal kun oo meerayaal ah kuwa oo ku wareegayo inta u dhexeyso Jupiter iyo Mars. Labada meere inta u dhexeyso Jupiter iyo Mars soo jeediin waxyaabahan oo dhan waxaa loo yaqaanaa meerayaal. Meerayaashan intee ka imaadeen marka? Waxaa la qiyaasaa in meerayarahan uu ahay jab ku dhacay meerahan Jupiter ka loo yaqaan. Jupiter kana waxaa la qiyaas waa sida la qiyaasayo in jab ayaa ku dhacay kadibna waxa uu noqday boqolaal kun oo meerayaal ah. Meerayaashan oo dhan uu noqday. Marka 8 meero afarta qoraxda ugu dhow iyo afarta ka fog waxaa kala qaybiyo waxyaabahan oo loo yaqaano meerayaal. Taas misal faham. Meerayaal maxaa la dhahaa? Waa meerayaal u dhexeeya Mars iyo Jupiter. Waxaa loo yaqaanaa meerayaal. Waxayna gaarayaan ilaa boqolaal kun oo meerayaal ah. Hadda waxaa gelaynaa marka afartii meere ee noo harsaneyd oo kala ahayd Jupiter, Saturn, Uranus iyo Neptune. Mid aan u hadlaynaa. Jupiter haddaan ka hadalno waxaa la dhahaa waa meeraha shanaad ee ugu fog qoraxda waana kan ugu weyn cabir ahaan dhammaan meerayaasha. Waxaa lagu qiyaasaa meerahan Jupiter dhexroorkiisu inuu kan dhulka ka weyn yahay 11 mar. Dhulku wuxuu ka weyn yahay meerahan 11 mar. Marka dhulka la fiiriyo 11 dhul oo la isku geeyo camal noqonaa meerahan cabirkiisa. Sidoo kale meerahan Jupiter ka waxaa lagu gartaa daruuro gaduudan iyo kuwo bunni ah iyo kuwo cadcad. Meesha ugu jeedinbo gaduud, cadaan, bunni. Intaas lagu gartaa meerahan. Waayahay Jupiter waxaa lagu tiriyaa inuu yahay meeraha ugu xawaaraha badan marka loo eego hareerihiisa oo 10kii saacba mar ayuu soo wareegaa.
haddii aan shidno meesha xawaaraha, waxaan arkaynaa meerahan inuu yahay kan ugu xawaaraha badan. Wareegiis jidaha waa meeraha ugu xawaaraha badan. Waayahay Jupiter asu dayaxyo badan uu leeyahay. Waxaa ugu muhiimsan Europa, Callisto iyo Jezemel. Waxaan ka hadlaynaa haddana meeraha kale Jupiter ku xiga oo ah meeraha lixaad. waxaa loo yaqaanaa meerahaas Saturn. Meerahaas maxaa loo yaqaanaa? Saturn aa loo yaqaanaa. Waayahay Saturn waa meeraha lixaad ee ugu fog qoraxda, waana meeraha labaad ee ugu weyn baxcaddeedka. Waayahay waxaa ka weyn keliya Jupiter ka weyn. Meerahan waxa uu leeyahay 62 dayax, kuwaas oo isugu jira kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn. Sidoo kale meerahan waxa lagu garto waxaa ka mid ah wareegyadiisa 7 ah. Waxyaabahan u jeedid wareegyadan 7 ah ayaa ka mid ah astaamihiisa oo lagu garto. Meerahan marka saan hor usoo sheegno wuxuu leeyahay 62 dayax uu leeyahay. Meerahan wuxuu leeyahay 62 dayax. Dayaxyadiisa waxaa ugu caansan dayax la dhahayo Titan oo ka mid ah dayaxyada ugu waaweyn ee meerahan uu ka mid yahay. Waana kana Titan midkan la Titan dayaxyada uu leeyahay meerahan kan ugu weyn ayuu ku jiraa. Sidoo kaleeto waxaan ka hadlaynaa Uranus. Uranus haddii aan fiirino asigana waa meeraha 7aad xagga fogaanta qoraxda. Waa kay Uranus haddii aan soo dhaweyno, waana gaas aad u weyn, waana meeraha ugu fog xagga dhulka. Waxaa ogaaday saynisyahan la dhihi jiray Uranus William Herschel. Meerahan waxaa lagu gartaa inuu leeyahay danab xoog badan. Sidoo kaleeto waxaa samaysma lagu dhahay waxyaabo danabeysan oo u dhexeeya labada cirif oo kala ah kan buluugga iyo kan cagaarka. Meerahan sidoo kale asna wuxuu leeyahay cirif buluugan iyo mid cagaar camal oo isku jira. Iyadoo ay jirto in meerahan biyo badan laga helayo, haddana waxaa la suurtagal ma ahan in ay nolol ka dhacdo meerahan. Midabkiisa oo buluug iyo cagaarka camal waxaa keenayo waxaa ku badan meerahan wax loo yaqaano methane. Taasaa waxay keenaysaa sababta ah meerahan inuu yeesho midab oo buluug cagaar xigeen ah. Haddii aan fiirino meeraha ugu dambeeya ee Neptune asigana. Neptune waxaa lagu tiriyaa inuu yahay meero weyn oo gaas ah. Waxa uuna qoraxda u jiraa fogaan gaaraysa 4.5 bilyan oo kiiloomitir. Dhexroorkiisa waxaa lagu qiyaasaa 4 laabka dhexroorka dhulka. Waxa uuna leeyahay 15 dayax. Meerahan waxa uu leeyahay 15 dayax uu leeyahay. Dayaxa ugu caansan maxaa la dhahaa? Triton dayaxan. Triton waa dayaxa ugu weyn dayaxyada Neptune. Dusha sare meerahan waxay ka kooban tahay lakabyo daruur buluug ah, waxaana ka sii hooseeya lakab kale oo dareere ah. Danabkan Neptune waxaa la rumeysan yahay inuu yahay danabka ugu xooga badan uguna aadna wuxuu ugu egyahay sida kan Uranus. Marka 8 meere meeshaan ayaa kusoo gabagabeynaa cashirkoodii. Waxaan soo baranay qoraxda waxaa jira waxyaabo ama waxay leedahay meerayaal. Meera maxaa lagu bixiyay? Waxaa lagu bixiyay qoraxda hareeraheeda ku wareegsadaan. Waxaa jira 4 oo
qoraxda u dhow iyo 4 aad ugu fog. 4 qoraxda u dhow waxay kala yihiin Mercury, Venus, dhulka iyo Mars. Waa Mercury, Venus, dhul iyo Mars. Kadibna meeshaas waxaa soo gelayo 4 kaleeto ah Jupiter, Saturn, Uranus iyo Neptune. Inta u dhaxayso Mars iyo Jupiter waxaa ku yaalo koox loo yaqaano meerayaal. Waxay gaarayaan 100,000. laakiin meerayaal maahan, waxaa la dhahaa meerayaal la dhahaa. Waxaa la rumaysan yahay meerayaashan inay yihiin jab ku dhacay meerahan weyn oo loo yaqaano Jupiter. Jupiter waa meeraha ugu weyn meerayaasha. Jupiter waa ka soo hadalnay. Sidoo kaleeto waxaa ka soo hadalnay meerahan kale Saturn, Uranus iyo Neptune. Waxaan rajeynayaa in aad fahanteen meerayaasha iyo waxa loola jeedo. Waana mahadsantihiin.